dowladda Itoobiya ayaa shaacisay inay xorriyadiisa u soo celisay siyaasi Itoobiyaan oo haysta dhalashada dalka Ingiriiska kaasi oo sanadkii 2014 laga soo qabtay dalka Yemen iyadoo loo cuskanayo sharciga argagixisada ee u yaala dalkaasi. Andar Geeto Utegese oo ahaa xogayihii guud ee ururka mucaaradka ee Gumbud 7 kaasi oo dowladda Itoobiya u aqoonsan tahay urur argagixiso kadib markii lagu eedeeyay inuu xiriir leeyahay dowladda Eritrea. warbaahinta ay dowladda maamusha ayaa sheegtay in Andar iyo ilaa 600 oo qof oo kale oo xabsiga ku jiray la sii deyn doono. Dowladda Ingiriiska ayaa marar badan isku dayday inay ninkan xorriyadiisa dib ugu soo celiso intii ku jiray xabsiga dalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed oo xilka qabtay bishii Abriil sanadkan ayaa sii daayay kumanaan maxbuus oo ay ku jiraan siyaasiyiin sarsare oo magac ku leh dalka Itoobiya iyo sidoo kale wariyaal badan oo xidhnaa arrimaha siyaasadeed dalkaasi Itoobiya. Cabdiraxmaan Carab Daawud Kalson TV Hargeysa.